थे तेरे बिना क्या वजूद मेरा gabadhaani wadada dhex taagan alaab ayay gadaysaa dadka ay markaa weydiinaysaa inay rabaan in kale ayagana marna ay leeyihiin ayadoo sidii meesha u taagan oo sugaysa wax alaabta ka gata meesha waxa soo istaagaya gaari oo nin saaran yahay ninkan waxa baa telefoon ay iskaga mashquulaya gaari waxa u saaran gabadhiisa oo iskuulka wado gabartii way fikiraysaa wax leedahay kaalay gabadha ay u wacaysaa kadib waxay leedahay meeqa ay la gadaa jibsiga kadib waxay leedahay intaas ay la gadaa okay si ay leedahay oo way siinaysaa markaasna markii ay siiso miyaaradda ayay ka dalacanaysaa oo lacagta ayay kala tegaysaa ninkina asina ma dareemayo in markaa gabadhiisa ay lacag islaameed qaadato sidii ayay ku tegayaan ayayna way iska oynaysaa xilli waxaa la gaaray ee iskuulka aadi lahayd gabadhaani qaybna waxbay barataa qaybna way shaqaysataa isla iskuulka dhigato ayaa gabadhii wax ka qaadatay ay iyadana dhigatay iskuulka dharkeeda ayaa soo baxsatay alaabtii gadaysana waxa boorso ay ku xareystay way ay soo baxday oo si dharkiisa kala soo bedesho gabadhani ama keeg ayay ku noqotay gabadhii alaabta kala soo tagtay masaakiinta ahayd in ay iskuulka saldhigtaan gabadha dharka iskuulka ay soo gashtay iskuulka ay soo aaday darjiin meesha ay soo fariistay gabadhii ayaa soo baxday oo agteeda imaatay ayadoo markaa uu wada xoogaa macmacaan ah si ay isla cunaan kadib waxay leedahay ila cun macmacaankan oo waxay leedahay alla gabadha alaabta igala tegay Soomaaliya ay lacagtii maxay sii wasay leedahay kadib waxay leedahay tan lacagta tan Soomaaliya oo ay leedahay igala noqay leedahay markii waa dadegsanay gabadha ay iska leedahay dhib malahan ay leedahay meeshan waxay ku cunayaan macmacaankii ay meesha ku cunayaan balse gabadhani waxay rabtaa in qoftaan ka argoosto jaanis aynu ku raasanaysaa sidii ayaa macmacaankii lagu cunayaa gabadhani way u farxaysaa oo dhool cadeyn ay u muujinaysaa laakiin gabadhani arin ayaa ku taagan oo ah in ay mar uun ka argooso doonto gabadhani waxay ku sameysay kadibna gabadhani way sheekaysanaysaa waxay leedahay iga waran say tahay xaafadda ay kula joogo markaas waxay leedahay hooyadeeda jirna ayaa joogto qof kale ma joogo kadibna way soo raacayaan guri ayay soo wadaysaa si ay u soo aragto hooyadeeda xanuunsan kadib waxay leedahay hore u soo gala haystaagin meeshaan hore ayay galaysaa guriga gabadhii waxay arkaysaa hooyadeeda xaalad xun ku jirto oo markaa biyo u baahan way naxaysaa biyo ayay u doonaysaa oo way ordaysaa si biyo u keento hooyadeed gabadhii kan halkaan ay taagan tahay oo xanuunka hooyadeed ku dhigan ayay la yaaban tahay ka naxsan tahay gabartii hooyadeed ay biyo u keenaysaa oo markaasna fadhiisinaysaa biyaha ay cabaysaa markii ay degtana waxay leedahay ooyo gabadhan waa saaxiibtay iskuulka ayaa saldhiganaa abarta maamadani way ku farxaysaa oo madaxa ayay u salaaxaysaa laakiin meeshaani waxaa ka soo socota arrin aad iyo aad u xun gabadha guriga markay tagtay aabaheeda u tagtay aabo gabadha iskuulka saldhigana ayaa bartay oo markaa hooyada xanuunsan waxaa rabaa inaad soo booqatid oo soo fiirisid ayay leedahay aabihi laakiin wuxuu leeyahay waa mashquulsanahay dhaaf oo jaanis uma hayo gabadhi uu ka adkeynaysaa aabihiina uu ku qaylinaa gabadhi kadibna ayay xanaaqsan ayay kasoo tegaysaa aabihiina soo sila gabadha ka xanaajinin ayuu u imaanayaa kadibna wuxuu leeyahay raalli noqo waa aadaynaa raalli noqo ayuu leeyahay caadi iska dhig waa aadaynaa dhib ma lahan kadib run may kaa tahay ha ayuu leeyahay kadib gacanta ayay soo qabanaysaa oo isla markii ayay soo wadaysaa oo waxay u keenaysaa gabadhii saaxiibteed hooyadeed jirna ayay dul keenaysaa ninka markuu arko xaaladda ay ku jirto aad ayuu u naxayaa kadib waxay leedahay gabadhi waxay leedahay markaas aabbaheed waxay ku leedahay aabbo maamada caawi saaxiibtii hooyadeed caawi ayay leedahay abihiina wuxuu ku leeyahay dhib malahan waa caawinaynaa isbitaal ayaan gelinaynaa dhakhtar ayaan ugu wacaynaa dhakhtar markii loo wacano dhakhtarka la keeno wuxuu leeyahay dhakhtarkana markaas wuxuu ku leeyahay dhib malaha ayuu leeyahay daaweyn loo qoraa way caafimaad doontaa insha Allah ninkan haye ayuu ku leeyahay gabadha sidii ayay ula joogaysaa gabarta saaxiibteeda
laakiin gabadhii hooyada la caawinayo ayaa arin kale ku soo gudoontay cuqdada hoose ay qabtaa oo ah gabadha inay ka argudato maalintii cagta kala tagaysay subaxdeeda marka daawada siinayso hooyadeeda ayadana way taagan tahay gabadhii kalena hooyada ay u shaqaynaysaa ninkii wuxuu keenaa daawo ayuu keenaa gabadhii ayuu u dhiibaya wuxuu ku leeyahay daawada hala sii hooyo ninkina waxa waaye wuu iska baxayaa shaqadiisa ayuu aadayaa gabadhii waxay leedahay or biikan ay leedahay daawada lagu qaso anaa la sii joogaaye laakiin waxa ay samayn doonto fiiriya gabadhan daawadii la keenay ayaa dhulka ku daadinaysaa maamadeena waxay ku leedahay aamus oo hadlin iyada ay istaagaysaa waxay arkaysaa ninkii oo soo socdo kadibna way ordaysaa waxay iska dhigaysaa qof daawada dhulka ka xaawinayso ama ka qaadayso ninkii markuu imaadana wuu naxayaa oo wuxuu leeyahay daawada maxaa u daadisay ayuu leeyahay wuu ku qaylinaya kadib waxay leedahay ana ma daadin gabadhaada ayaa daadisay maamada way naxaysaa beenta ay sheegaysa gabadhan gabadhii oo biyo soo shubayso daacad iska ayaa ninkii wuxuu u tegi doonaa gabadhiisa maamada laakiin ma hadli karto oo ninkana ma maqlayo laakiin gabadheeda inay istaagto waxay leedahay aamus ay leedahay afkaada ma kala furi kartid gabadha waxay rabtaa inay ka argudato ninkii gabadhiisa ayuu tegayaa uu ku qaylinaya wuxuu leeyahay maxaa u daasay daawada lacag qaali ayaa ka soo bixiyey sababta u daasay maxay tahay daawada qayli ayuu ka saari doonaa dhagaha gabadhiisa aad ayuu u qaylinayaa gabadha laakiin waxay leedahay maxaa ka hadlaysaa ani daawo goormaa daadiyey ifahan aabbo ayay leedahay wax ma daadin aniga gacanta ayay ka qabanaysaa kadibna wuxuu leeyahay naga fog kadibna wuu ka tegayaa gabadhina meeshaas ayay ku oynaysaa gabadhii intaas kuma yaraysanin haddana waxay samaysay arrin kale waxay soo qaaday saliid ama shaambo saliiddaas ama shaambadaas waxay ku daadisay dhulka maamada ama hooyada agteeda ayay ku daadisay si markii ay soo baxdo ee ugu dhacdo laakiin meesha waxaa imaanaya fiiri aabbaheed gabadhi kale aabbaheed ayaa imaanaya ayadana waa iska tegaysaa gabadhi kale aabbaheed markuu soo galo wuxuu arkaa meeshaan oo wax lagu daadiyey oo markaa lagu sibxanayo markuu imaado wuu fiirinayaa kadibna wuxuu arkaa in waxaan wax ay yihiin saliid ama shaambo nasiib xumo gabadhii ayaaba gacanta ku wado gabadhiisii ayaaba gacanta ku wado wax meesha lagu daadiyey aabbeedna wuu ku xanaaqayaa kadib wuxuu leeyahay maxaa ka wadaa saan u samaysay ayada gabadha wax ma oga daacad ayay ka tahay wuu soo wadi doonaa guriga ayuu ka saarayaa oo wuxuu leeyahay soco guriga aad meesha dambana makuu arki karo gabadha awal meesha waxay u joogtay inay caawiso maamadan laakiin meeshaan maamadii way soo istaagtay biyo ayay rabtaa laakiin ma oga meeshaan in wax ku daadsan yihiin maamada markay soo istaagtay oo 2 tilaabo soo qaaday waxay arki doontaa lugihiina u baxeen meeshaas ayayna madax ka bilaabi doontaa dhici doontaa gabadhii kalena way ku faraxsan tahay in gabadha gurigan laga saaro maadaama ay horay u qabtay cuqdad ninkiina wuu u imaan doonaa gabadha dhulka taalo oo markaa suuxsan